kulan wacan wanaagsan idil ahaantii ay khiyaarta wada nagala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray Itoobiya sare dawladda deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba geeska Afrika qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah sarkaal sare oo ka tirsanaa jiray ciidamada makalakayaaga ee dalkaasi Itoobiya oo lagu magacaabo Balay Sayum oo haatan ku sugan ambaba u qaabilsan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya la soo afjaro xoogga Gafaano ee ka dagaalamaya deegaanka Amxaarada ayaa war la yaab la waxa uu kaga dhawaaqay gabi ahaanba dalkaasi Itoobiya haddaba warkaasi uu ku dhawaaqay sargaalkaasi oo nin khabiir ah inta badan ka soo shaqeeyay deegaanada Soomaalida xitaa ka soo shaqeeyay dalka Soomaaliya warkiisuna uu yahay wargeedka go'an ayaynu daawadayaal ku qada dhigi doonaa waxyaabaha uu ka sheegay xoogga Gafaano iyo waliba isbedelada ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya kalo daawadayaal barnaamijka aan ku qada dhigi doonaa odayaasha iyo waliba dhalinyarada ka garab dagaalamaya maleeshiyaadka dawladda deegaanka Soomaalida ee galbeedka City ayaa arrimo cajiib ah waxa ay ku arkeen ambaba ay anidaahdee ka heleen deegaanka gobolka City gaar ahaan galbeedka xilli ay dagaal xoogan kula jireen danaakirada soo duushay ee dooreysay in ay gabi ahaanba ku habsato gobolka City doorashadii oo ay ku shubteen xisbiga EPP oo horaan si shaacinayba in ay tahay nin dooran doorta waynu ku qaada dhigi doonaa qaabka loo musuqay waliba farsamooyinka cusub ee ay haatan ku dhaqaaqeen kooxda BB ee ku dhaqan magaalada Jogjaga qodobo kale oo ku saabsan dalka Soomaaliya waynu ku qada dhigi doonaa barnaamijka waxay la daran doorin doonaa ninka inta badan ka faalooda xaaladaha dalkaasi Itoobiya iyo guud ahaanba geeska Afrika Dr. Shide oo aan marka hore stuudiyaha ku soo dhaweyn doono Dr. Shide soo dhaweey bal waxaynu ku horeynaynaa galbeedka si tahay inoo dambeeyo Balay Sayum ninkani waa nin inta badan waxa weeye xaaladda Itoobiya wax laga weydiiyo waana sargaal sare oo in badan ka soo shaqeynayay ciidamada Itoobiya waxa uu sheegay in aan loo barbar dhigi karin gabi ahaanba xoogga Gafaano laakiin loo baahan yahay in dawladda Itoobiya ay xal la timaado waa sidoo hadalku dhigayo marka maamulka Amxaarada laftigiisu warbay soo saareen waan ku qada dhigi doonaa marka maxaa ugu dambeeyay aad iyo aad badan maadsan tahay Colonel Faragodow Balay Sayum warbaahinta dalkaasi Itoobiya gaar ahaan midda federaalka Faano ayuu waraysiiyay wuxuu ka hadlay dagaalka halka sano ka socda deegaanka Amxaarada isagoo sheegay inuu dagaalkii ay galeen hal sano ka hor maanta halku ka bilowday inuu maanta wali joogo oo ku sheegay arintaas inay tahay guul darro weyn oo ciidamada dalka Itoobiya ay soo galbiyeen wuxuuna sheegay maanta oo kale waqtigan markay joogtay inaan ballantu ay ahayn amagan halkan aan joogno horta wuxuu ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolkaasi wuxuu sheegay halka sano dagaalka socda in ay wali halkii ay ka bilaabeen ay joogaan waxyaabo badan dhaliilo badan dawladdu u jeediyay xoogga Gafaano awoodoodan uu ka hadlay marka Balay Sayum wuxuu sheegay ayaga Faano in ay dagaal xoogan soo wada galeen laakiin xoogga Gafaano ay garab heleen buuri qarsoon oo dawladda Itoobiya ay ku baraarugsaneen in heleen marka wuxuu ka waday ciidamada dalka Eritrea in ay si maartay dadbaniyo si toosaba ay u barataabayaan xoogga Gafaano markasta wuxuu yiri aan jabinay nimankaasi aan dhahno buuraha ay galeen xaaladu waa gabagabo gobolku dhaqaaqyada isku socodka bulshada hal furo gabadhana gobolkaasi si toos ah loo fasaxo waxaana soo galibir guutooyin carbisanba oo wali xabad rid bana soo galibir waxaana lagu celin bir meeshii aan ka soo dulay marka wuxuu yiri nimankii Faano ah waa loo taaglayahay hadayna dawladda Itoobiya xal waara la imanin oo maartay arintani laga baaqsanayo wuxuu yiri dalka Itoobiya meel fog baa laga raadin doonaa Balay Sayum waa nin khabiir horta oo dagaal badan ayuu ka soo qayb qaatay ilaa waqtigii TPLF wuxuu ka soo shaqeeyay dawladda deegaanka Soomaalida muddo dheer ayuu ka howlgalay inta wuxuu ka hadlay inuu ururka ONLF muddo dheer la dagaalamay oo dagaal uu kula jiray ka hadlay inuu Soomaaliya ka soo shaqeeyay Beledweyne Baydhabo iyo gobolka kale ka soo shaqeeyay Soomaaliya ayaan uu ka soo howlgalo sheegay marka wuxuu yiri inta aan dagaal aan xigmad aan u leeyahay buu ama aan aqoon u leeyahay kan deegaanka Amxaarada ka soo kulmida waliga markii wuxuu yiri dagaalkan waa dagaal horta wuxuu yiri laba awood oo isku hayaan buu waxaa la dhihi karaa dawladda Itoobiya waxay aaminsan tahay inay Faano jamhad yar oo fudud oo hub maartay aan badnaysay laakiin wuxuu yiri hubka ay haystaan iyo kanana haysan waa isku mid biri waa laba dawladood meesha ku hardeeyay marka xaaladda gobolka Amxaarada ayuu ninkaas aad uga deeriyay wuxuuna sheegay inay qarka u saaran tahay inay nimankaasi gacanta ku dhigaan gabi ahaan ciidanka dawladda harko cad ay ka soo bixi doonaan marka dawladda Abiy Ahmed wuxuu u jeediyay
eedeyma aha inaan dawladdu xal haynin oo dhalinyarada dalka aan dabka ku shubayso maalin kasta ay maarta guutooyin hor la keenayso guutooyinkan aan dib la soo weydiinay meesha ay ku dambeeyeen xoogagana ay ayaguna sidoo kale ay guutooyin hor la soo gelinayaan xaaladuna ay tahay jugjugo meesha joog wuxuu inta in ka badan inaan si dul qaadan karin ay u badan tahay dalka aan xalku gacanta ku jiro marka ninka hadalkiisa waxa laga dhadhaminayay in uu dawladda eedeyma uu mucaaradka ku biiri doono وانا خبير وانا ملتريا لما ركزت عاد جوجل تليها استحاد انه جتاج جودنا كحجين كسنو يان مالاني هذا ونكاسي وهذا وكحجين كيس سريع جتاج جودنا وتليها هولجلنت وجود عينك ملتري ذلك إثيوبيا marka ninka hawshu ka dhigay dawladda Itoobiya aad bay uga xumaatay maadaama ay jab weyn uu ka sheegay gobolka Axmaarada soo kale xooga Faano waxay bandow ku soo rogeen Bahardar iyo Gondar waa caasimadda koowaad iyo labaad iyo gooy bandow ku soo rogeen oo sheegay wax dhaqaaqa in laga sameyn karin magaalooyinka dibadooda wax ka soo bixi kara iyo wax gali kara untoona uu jirin iyadoo ciidamada dawladda ay gudaha ku jiraan magaalooyinkaasi sidoo kale Faana waxay weeraro xoogan ay ku hayaan xiriya ciidanka ku yaala gudaha caasimadda deegaanka Axmaarada ayaa waxay ku hayaan weeraro hoobiyaal oo dhamaaneen bari habeenka waxa la gabal markuu dhaco hoobiyaal si caadi iska noqdaan bari hoobiyaashaas hadana markasta waxay waxyeeleeyaan dadka rayidka oo marka xiriyaha ku soo dhacayaan dad rayid ay ayagana sidoo kale ay saameynayaan marka gobolka Axmaarada gabi ahaanba dawladda Itoobiya wuxuu qarka u saaran yahay inuu gacanteeda ka baxo Balays Hayuum ayaana cadeeyay inaan hawshaas siyaan karin gobolkan uu isbedel weyn keenay waxaan u badan tahay Faana gobolka Axmaarada qabsato kadibna ay ku dhawaaqaan qorshaha kale ee xiga wakaas wagartay maamulka laftigiisu waa uu ka hadlay oo inkastoo maamulka la leeyahay way ka soo carareen Bahardar oo haatan waxay ku sugan yihiin intooda badan magaalada Addis Ababa caasimadda dalkaas Itoobiya maxay sheegeen maamulka laftigoodu xaqiiqadana way wax badan bay ka sheegeen maamulka Axmaarada qudhigiisa dhan ka raran yahay waxa hadlay afayeen u hadlay maamulka Areey Kabadhe ayaa warbaahinta la hadlay Axmaarada xaaladda gobolka Axmaarada wuxuu yiri waxay ku laabatay 1991 ee ka sii gaal martay maanta wuxuu yiri gobolka Axmaarada gabi ahaanba wuu burburay yiri meel bil aad ku noolaan karana way iska yartahay goobo yar markii laga yimaado inteeda kale wuxuu yiri Faana ayaa burburis Faana uu dusha u saaray Faana wuxuu ku tilmaamay inay yihiin xoog manaxariistayaal oo gobolka Axmaarada badbaadinaya kaabayaasha dhaqaalaha baabiinaya maartay meel kasta oo maartay xaaladda gobolka Axmaarada ama meel kasta oo dadkaasi wax ka soo gali lahaa inay go'doomiyeen oo ay burburiyeen marka wuxuu yiri deegaanka Axmaarada uu ka tacsiyay ninkaasi wuxuu sheegay in maamulku ay gabi ahaanba ay gabeen shaqadoodii dawladda Itoobiya ayna dadkan ayna ka naxin deegaanka Axmaarada dagaalkan aan xal loo helin wana dawladda Itoobiya ayna miiska wada hadalka ayna ogolayn wiil dawladdu ay dagaal ka doorbidayso dawladda Itoobiya ninkaasi wuxuu ku tilmaamay inay cadow tahay waa cadow wiil soo maamulka tirsan cadow waxa kamid ah buu yiri wax ali dantaada oo dadkaaga iyo deegaankaaga maslaxa u ah hadda iyo hortaagantahay dawladdu waxaan leenahay Faano waa niman Axmaara waa niman Itoobiyaan aan la fariisano xabada aan joojino dawladda dhiibura lama hadli karo totally wax wada hadal Faana la gali karo ma jiro xabada harida Faano marka wuxuu waa siyaasad ku salaysan qabjabin iyo baabi'in oo isirsifayn ah inay Axmaaradu isku baabado Axmaaradu ay jabto gabi ahaanba loo siyaasad ahaan ay baabado sidii tikrayga loo baabiyay dhaqaale ahaan u baabado ciidan ahaan u baabado iyo dawladdu ka shaqeynaysa markii dawladdu wuxuu ku tilmaamay inay tahay cadow qarsoon hadana kula jira hadana ka jira gartay inay tahay ku tilmaamay sidoo kale wuxuu sheegay ninkaasi in ayagu markasta ay soo dhaweynayaan inay Faano wada hadal la galo miiska wada hadalkana la yimaado si maaragtay gobolka xal loogu helo marka gobolka Axmaarada waxaad moodaa inay xoogag hadda isku hayaan ninba uu sidoo asagu rabo Abiy Ahmed wuxuu rabaa gobolka Axmaarada inuu dagaal iska socdo oo la helin nin Axmaar ah oo siyaasi ah oo maaragtay kursiga Abiy uu guri ka galo oo ama Axmaaro rabta inay ka qayb qaadato dawladnimada ama ayagu ay rabaan xog galo inuu qabkaas u jirin baraba oo meesha furin dagaal هذا تكرار واحد وزون تهي تكرار دجال بدل قلي هبا أنا لقيت جوليسن إنه هلا دوينا ولين ولين ولا أهل ليان ودولدو أنا ولين ما أمر كذا أنا كهر جلين قبل كان أنا يدو أنا قعدت كوين هبا عطو لكن نية هذا تكرار ها كمجرتو إن أيمان تلين أما القلابتين أبي لكن واحد كهر ليان وحاويون يتوبي عدالة إن الهرو يتوبي عدالة لو وذا سمية هاي إن الهرو أما إن دل كان إن لو كلا تغي لكن إن أيوب مرحلة عين هوس فريسين دولة أبي أحمد لكن دي أحمرات قبك كجري أبي وكل ده الله معاد انقلاب أن رمال هن مالك استلف الشرين أيوب سياسيين تو قيل يسا
faanadii oo diiday amarada dawladda ka soo horjeestay inay fuliso heshiisyadii dawladda inay fuliso inuu ka dhigday diiday marka ay wuxuu rabaa in meesha tigrayo kale ayagana geeyo hadhow ay noqoto wartan ana ka taliya inuu ugu soo doofay oo de waa wax wada qaybsano waa inuu galay laakiin marna inuu guri kursiga ka gelin saas weeye bal waanu fiiri doonaa xaaladda Itoobiya iyo gabi ahaanba waqooyiga oo karkaraysa haddii aynu dul istaagno galbeedka city horta nimankeedana kirada aha lugtoodii la baxeen haddaad maqli jirtay qoladii reer hebel ahayd lugtay la baxeen waxa weeye lugtii bay horta la baxeen daraakiradu dagaaladii ugu dambeeyayna odayaasha xataa baa galay iska daciidanay odayaashii dhalinyaro iska day odayaashii baa galay marka bal faahfaahin baan arkay adigoo haday dad fara badan baa la xiriiray hadii bay ku soo jijiga laftigada waa la xiriiray dhanka doorashooyinkii bal maxaa ugu dambeeyay dhankaas iyo hadaan fiirino maxaan ku dhahay dawlad deegaanka Soomaalida iyo waxyaabihii ugu dambeeyay fargodo galbeedka city horta dagaal baa ka socda aan kala joogsilayn 3 bari yaa ka socda u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta dagaalka ka socda galbeedka city taariikh badan ayaa laga diiwaan galiyay oo Soomaalida iyo Canfarta ee dhaxmar ayaa laga diiwaan galiyay inkastoo wali dagaalku uu taagan yahay aana lagu kala adkaanin xoogaggu ay hor fadhiyaan ciidamada Soomaalidu ay wali guush hogaaminayaan ciidamada horta Soomaalidu waxay ilaahay maadaama gacanta ku dhigan galbeedka city guud ahaan markii laga inta saldhiga ku taala saldhiga ugu weyn ee laga soo duulayay ama tababarada ciidamada midka ay maaqnad ku geel qalanayeen gacanta lagu dhigay saldhiga loo yaqaan gidibka oo duleedka ku yaala magaalada Garbaciisa loo ciidamada Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay halka bay hadda ku soo yiin ayay militariga soo fadhiyaan Canfartii militariga gadaal ka martay halkaas ay ka soo tuurayaan hub culus waa militariga soo ridaya Canfarta soo xaqi militarigu ku imanayaan militariga waxay leeyihiin Canfarta laga soo waxba soo ganaya Soomaaliya ku soo hoobanaysa marka dagaalku ugu yaraan 5 jiha ayuu ka socdaa oo ciidamada Soomaaliya ay defense kaga jiraan oo kulma nimankan goob ay isku dayayaan inay ka soo galaan laakiin goobihii dhan waa laga guuleystay hadda Candhuufo gees bay u go'an tahay Cadaytu gees bay u go'an tahay Garbaciisa gees bay u go'an tahay intaba Soomaaliya ayay u xiran tahay laakiin gudaheeda lama geli karo ciidamada dawladda Itoobiya jooga aad u hubaysan oo lagu yiri haday nimanka Soomaalida gudaha u soo galaan xalad alaaliyo waa amar dhagta laga geliyo waa amar heer federal ka haystaan digniintan uu sheegay Soomaalida toos buu taliya sare halka haysta oo gabar waxa la ya u yimid ciidamada Soomaalida wuxuu ku yiri hadad magaalo cagta soo gelisaan waa bay jireen baldi hatta inaga hadmeeyo galbeedka city ma inaga saareen oo hadda asoo ormaf guduudanay marka amar waxay haystaan wasaaradda gaashaandhigga oo gobol magaalooyinkaas lagu yiri Canfar baa iskale amar waxaan haysanaa magaalooyin magaalo Canfarta deegaanada kala dagaalami kartaan laakiin magaalooyinka 3 magaalo waa wixii calaam su'aal baa saaran gudahooda ma soo gali kartaan marka ciidanka Soomaalidu halkaas ayay ku hakadeen oo ay fadhiyaan laakiin Canfarta joojinayeen waa mugtay waa niman garab ugu mugtay weerarkoo saacadu mu socda waxaan arkay odayaal ka hadlaya oo xaaladda ka hadlaya arkayo baraha bulshada la soo odayaal badan horta furta tagay oo goobihii hadda ay qoleedan ciidanka maleeshiyaadka ama kuwii dhar caddi beesha Ciise la qoray iyo kuwii yararkii dhalinyaradii ku galoo qaybiyay odayaalka dhaxlay arkay oday yiri waxaan 78 jir mu yiri aad u duqoodan in aad uga baadiyaa inuu ku rafaaday oo dadkii maartay aan xanaani waxa helno de durba abaa isku dabartay ayaa meesha ka hadlay wuxuu yiri maalinkii dhawtaan dagaalka galeynay aan bakoorad baan watay wiilasha wuxuu yiri yar cabsanayaan u shabkooda abaha la kiri gal anoo awow ah socdaan laabir hada cabsan xiniyaha lagu gooyi yaa laabir marka wuxuu yiri dagaalkii aan gal horta marka wuxuu yiri qaliban badan ma keenay hubka ugu badnaa ka furanay wiilish markii hubkii dhalinyarada qaadi weyday ay laba qori oo ka foodsan waa taagir waa kala garab u kala saaray bacu qasnado ku watan arkay bacweyno loo raan wuxuu wada qasnado wuxuu la soo uri qasnada iska daadsan wax gurta la waay marka wuxuu yiri baash waan ka dhargnay horta kalimada xaq hubka waan ka dhargnay yiri oo maanta ninka gobolka city jooga oo ninka ugu yar una dhow qori haysan rag baa wuxuu qori dhulka ku aastay bari oo la baxana dib ugu iibsadaan dhulka ku aasaan bari kartay markii qaadada farahooda marka ninkan qalimo badan ay galbeedka city ay sheeganayaan inkastoo ciyaar gelinka dambe tahay oo dimashu Itoobiya waxyaabo badan ayaa isku jaakiraya dawladda Itoobiya waxay leedahay xal baan ku maqannaa
حال قلبتك سيدي أكون مقنعي أقوياء قبل كان ينشرينا سياسيين تودوا نص شرينا كوي دينك الصومالي ينشرينا قلبتك سيدي عندما هذا واحد لوسو دادي ملتري إثيوبيا اللي وجود هذه مقالوين كان قرب عيسى عنوفه ده أنت لقينا يحاول إننا الصومالي القبسان هذا الصومالي القبسان حلقوا حنا قلنا الصومالي كل لينا حدود كجوان عيدا كذا أيضا ده أنت اللي يحاول حلقة اللي قاعد يحاول مقالوين كاسيني كريان بإثيوبيا كان لا صحيح مركا فرقة وهو شرط وأدقت يود مركا كده بيس عرك أي سكوسي شرير قلبتك ستنا وحاد مدة دجال كيسو إنه نقضي من أن حل لوه لدون من أن حل لوه لدون إنه يهي أيام مدة أو دجال ويسيف في ذي دجال هور لاجي يعني بينا مركز دي بقى عرتان وقرتي داود يال كل دجال كاسو سيدي برنامج دي هربات كم مغليسين دنا كيلو لقطة دي ولا بحين إذا هذا فرق بدنا ماشي ويصور دوبين وهذا وحوي إذا كايصور دوبين ما بيجرين با لكن هدي الله بقرب كود كبحيو نمان حق درب كسعودي هايين وهذا كور ده شعبه مساكين وكونوا القبل كاس السيتي وصومالي أبي لاعين مركا مر هدي الله قرب كذا كبحنا هدي وحكومة يلا المش مركا نمان كده كده هوا شبين مدبا وحنا كهيشلو وحنا كهي قبل كروح بدن نمان كورته نمان وده من شر دوبنا عفرته أو وده قاعد شيء سن أو بيوضع هاي ظروف باك موقت مركا مدبا فيسبوك وحصاد جاي لبع عن فريقه iyo gabar yar qurux badan oo ku qiyaasay 12 jir oo midab furan intay leedahay oo aad la yaabayso marka mid Soomaali wuxuu ku soo qoray gabadha hadii dagaal soo gasho hadirina in xabadu iska halasho mooyaane lama wadila bada halka markay warsa guriga iska geyso ya guriga iska geysto boorka ka jaf kullu way gaasado afarta way ka reysan afar maartay u baahan mayso asaas ayada dhiidoonta Ilaahay baa iga keenay tiwil caadod ka dhali asaas weey marka waxa leenahay bal horta waxa weeye gabdhahaas yararkaana waxaan rajaynaynaa ciidamada iyo dadka maleeshiyaadka deegaanku inay gacanta ku soo dhigaan oo dilin oo maartay la xanaaneeyo la soo qabto loona aqli celiyaan ayaan rajaynaynaa marka intaas waa galbeedka city doorashadii nin doortay ee EBB du noo malmaluqeen maxay ku dambeysay horta niyo magaalada jigjiga ee dowladda Soomaalida waxa ka dhacay la yaab leh haya dadka waxaad moodaa in loo dhigay filim horta dadka waxaad moodaa xisbiyada mucaaradka ee deegaanka Soomaalida inay wali carbisnin bad moodaa ma carbisno siyaasadda adduunka ka socotana ma fahansano siyaasadda adduunka ka socota ma fahansano iyo mid Itoobiya bamiya hadda xisbiyada deegaanka Soomaalida ee tartamaya hal qolo oo u carbisan siyaasadda maartay doorashada ma jirto waa dad aad moodid dhamaantood inay yihiin TikTok yar TikTok رماش إنه يمد مدرسين معارض دين سوماليدا تورش هتجي كده على معلمات إشالة هاد أو هذا هرب عادي للشاعية ده كوكوليست للشاعية إن كستو دورش اللي وذكرنا جاهد ده كيقانا إثيوبيا أي آد رفع سنين تورش هتجي كده على أبين مدى حالي مركي مخرجين السوق بالجبية ترنت على بلاوي سبيد معارض كله يعني نوال بحالة يرسوفر سوق بدورشة هذه سوى رقاها أو فرصته فاش ولا تري حسبيد معارض كبحالة يري أرضية أنت هذا أدان جودي سكت دورتان صوين إنه جواه دورشة عودك لو ترني جودي على صوحنا كل معارض كترتمي نوم بس كصوحنا نوم حق دورشون كتجين بحالة سير لو ترني فيريا هبل شو كل معارض كلو يا أنت يا مركز ترني يعني هبل نعم معارض مركز تقول بعد زوج تاجين يا واحد عنده ورشة عدالة العضي سيدا حد كوس عطنا وسيدا فيلني ولا كان عيد وحبل وديبي هي واحد عنده ورشة كوس عطا هذا عطير كوس عطا وسيدا فيلني يتوبينا كضايش اللي قدام تجيجو واكو ويتهي وربعين تكدر يرين هي مركب يتوب نالك جيجو كرنتا كتكت بو ولا يقناه كورنتادي ayaa ka tagtay haye markii 2 saac habeenimo ay korontada ka tagtay 9 saac habeenimo soo noqotay haye waa intii wax la kala waxaynay haye 9 saac habeenimo soo noqotay waxa la wala codtirinta socota waxa ka nimanka mucaaradka hebel kama dambeynimo inta warbaahinta ka dareerayeen hebel magaciisa la sheegay kama dambeynimo haye haye ساق مركو واجو بري قلادن مقتاي مبرار خيل كي دحر مقتاي مبرار خيل هداد مقشو waxa weeyaan waa xarunta korontada mugtay meesha korontada marka mabrar heelka intay la hadlaan uma waxa la dhigay naga damiye baash naga damiye haye marka
nimankii aroortii markii soo toosay waxa la arkay BB oo wada hambalyeynaysa hebel oo leeyahay wuxuu wataa inta 100,000 intaas kuwa kalena 10 qodob cofay hore la tiriyo bay taagantay hal qof oo wada san hambalyadu markii way bilaabatay BBD way bilaabatay nimankii ayaga ka qareebay warbaahintii oo adduunka u sheegay in doorashada cadaalad ahayd marka wax intee dhanbay marka qoladan la siiyo loo daadiyay sida hadda warku soo garay kullu waxba loo daadiyay bal qolada gudiga xilal waa loo balaqaaday bal gudiga doorashooyinka maya kuwan la yiri idinku ku dhawaaqay mucaaradka timaarta ayaga iska soo xuleen ayaga gudiga ayuu soo xuleen ayaga wax wala tusay wax la tintu socoto marka la soo warbaahintu sheegay doorashada cadaalad ah hadal dama ma jiro mid waa lagu soo dama dhigirtay alaab warbaahintu sheegay gudiga doorashada sheegay hay waxba la siiyay baa ya soo baxay way u badan tahay in wax la siiyay laakiin hadal dama uma banaan ayaga isku baqraatay fure in doorashada cadaalad dhacday BB baa soo baxay waa ko BB xisbigu waa hambaliyay xisbiga BB laanta sokore ya hambaliyay waa ko waxa ku hambaliyay in doorashada ku guuleysteen toddobaad xubinood inay soo dhacay u guuleysteen ay shaaciyeen marka qoladii deegaanka Soomaalida hawshaas ugu dhaw waxyaabo kale la yaab kale waxa waaye in xisbiga BB horta dadkan aan mid baan garan waayo dadka Soomaalida deegaanka Soomaalida jooga ma aqoon buna lahayn bis xuquuqdooda baan yaan waxba laga siin dadka doorashooyinka jooga ee dadka codka nimanka gudiga doorashooyinka ay soo xiraan shaqaalaha dhan waa Ethiopian dadka shaqaalaha wax qoray foomka buuxinaya ruux magaca ka qoraya iyo waraaqda uu soo geenay dadka gudaha ka shaqeynaya agentiga markii laga yimaado Soomaalidu waa agentiyal bas ninka agentiga adaa inta lagu sharax baa tahay ana soo diro wiil adeerto kale waxa halka ii taagno sanduuqa fiiri adaa halka iska taagno sawir baa tahay marka laakiin dadkan wax qoray foomka hebel magaca buuxinaya foomka buuxinaya dhammaan waa Ethiopian waxa doona meel qori karaan hal qof oo Soomaaliyeed ay shaqo qabanayso wiilka madaxa adag timaha garaarsan ee oranka wax adag dhabuuga madaxa qalafsan waa meesha fadhiya ayaan dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed wax qortama leeyahay wala heli laakiin qolada gudiga doorashooyinka kore horta meel waxa jira sidaaba Ethiopia waligeed ba iska haysato dowladda deegaanka Soomaalida ilaa meeshu waa meel iska gumeysay ee waxa weeye wali gacanta lagu hayo xarumaha gacanta lagu hayo waa gudiga doorashooyinka sidaaba xabad Soomaaliya waliba wayan dambe lagu soo dhaxdaray waagi hore xool lagu dhaxdar jirinba gudiga doorashooyinka ee heer federaal heer deegaan markii loo dhaadhicinayo waa uu iska Ethiopian way boqolkiiba 90 xabad Soomaaliya way ku dhaxdaraan taas gacanta ku hayaan waxay kaloo gacanta ku hayaan bangiyada waxay kaloo gacanta ku hayaan wax la yiraahdo mabraheelka aan ku sheegayo korontada ayaa gacanta ku hay waxay kaloo gacanta ku hayaan laamaha hadii bay ku soo ogol yahay maxaan ku isgaarsiinta iyagana iyaga gacanta ku hay marka Soomaalidu waa uu xuquuq yar xilka ah la yiri ma garanaysaa wasiir hebel baa tahay ama xafiis hebel baa joogta iyo xuquuq shaqaale ku shaqeeya mooyaane inta imaha kale idil waxa gacanta ku haya Ethiopianka gacanta ku haya walgoodna gacanta ku hayeen haddana gacanta bay ku sii hayn doonaan marka waxa weeye waa Soomaalidu waa dad wali ma garanaysaa iska waxaysan way dad israacsan ma aha oo midaysan dad xuquuqdoodii iyo waxigoodii si toos u wada dhacsanayana ma nin walbana markuu meesha tago qolo mucaarad ku abaas ka jirta Ethiopianka oo loo kala dhuuntaa waa waxa Soomaaliya ku bilaabmay way mid kala raayro ku darsada niman ma la yaabay siyaasiyiin oo gobolka Faafan ka soo jeeda ugu horeeyay Khadar Jigri ninka Khadar Jigri ah sida uu hadlay xataa gabar fudud ma hadli karto muxuu yiri doorashooyinka hadlay nooca uu hadlay xataa gabar fudud ee uma hadlayso muxuu sheegay waa ninka weeyda u taagna in madaxweynaha deegaanka Soomaaliya laga dhigo oo markaas Ethiopia dawlad deegaanka madaxweynaha laga dhigo waa ninka musharaxnimadiisa diyaarsan ee dhaqaalaha badan bixinaya waa ninka Mustafa ku yiri iga dhig gudoomiyaha gobolka Faafan وانتو مصطفى مركب ورث مقعابه هذا لو كلابتي وكعلي هذا ويد مدة دير حدنا وانتو مصطفى حلاي مركب ددك كعيي حبس اللي جري كده ضمين لو جستي دلك مريكا كدر لو ترحيلay ninkii baa wuxuu taagan yahay jigjiga dadka soo galootiga ku ah hajoojiyaan qaaladii propagandada soo galootiga jigjiga lagu joogaa jigjiga lama wada laha reer baa iskale ee tartiib cagaha dhigtay weyn oo mustaqbal ummadda uu gaabisa waa dhamaad horta leeyahay Sayid Abdullah Xasan horta waxaan jeclaan lahaa heerka haygu dambaajin xaqda qabtay jidda asaasa maya Khadar Jigri dad wuxuu maya Khadar Jigri kaliya ma aha horta nimanka gobolka Faafan horta haygu dambaajin
wax waxa jirta iska taariikh oo iska soo jiray baa jirta waan gartay si Abdullah Xasan wuxuu yiri Ilaahu naxariistay amiin sayidku wuxuu yiri nin galbeed jooga dib laba jira dhaama hay markuu sida dhahay waxa weeyaan waa 1900 iyo hoyoyodii way waa xilligu sayidku waxa weeyaan daraawiishtu calankiisa u taagnaa wuxuu yiri sideedaba nin galbeed jooga dib laba jira dhaama hatta geel lama dhig geelu macnuu leeyahay ma garan geelu hatta macnuu leeyahay sideedaba adigu maadan arkin gobolka faafan dadka daga awl horana de kaaga sheekay qoodi wax la dhaho qoodi ba wax la yiraahdo iyo qaad yaqaan u bayaqaanaan waan gartay qoodigu waxaan u maleynayaa adu galbeedka maada tagine qoodigu waxa weeye waa dhulka magal la kala iibsanayo weeyaan reexamarku iyo abgaashu waxay dhahan goof bay dhahan ayagu qoryaha reer koonfureedkana goof bay dhahan hebela goofkaan iskala bay dhahan markii jijigi iyo gobolka faafan la joogo qoodi waxaa laga dhahaa goof baa laga dhahaa qoodigu marka waa dhulka aad adiga leedahay marka adduunkan la tartamahayo ama uu soo doonto ha noqotee amxaara maxaa ku dhacay qabsatay deegaankeedii qabsatay mustaqbal la leeyahay wixii la leeyahay wax ayagu waxay ku fakarayaan qoodi hebel baa maanta aan soo iibsanay shalay qaad baan cunay iyo galay waa intaa wadada iska mustaqbal kale ma leh waa masaakiin bade ishooduna de waa horaan qaban yaan ku sheegayo meel kale ma qabato waa iska reer galbeed oo inta jaadka iyo xasis ku cunaan wadada iska masaakiina way marka dadkaas khadar jire ya siyaasi u ah khadar jire siyaasi ah iyo doctor Doraalihi aan ku sheegay Cabdiwaasi ah doctor Doraale yaa aniga aan u bixiyay aan macna balahayn marka qoladaas waxa weeyaan wax macna la ma aha jijiga haday quman yihiin adeer dhabuka maxaan ku dhahaa hadii bay ku sameeyo gol yahay jijiga ku soo qulqulay iyo amxaarada ay dhihi lahaayeen war meeshu waxa weeyaan waa anaga iska leh waxaan aad nagu soo daldalayso Ethiopia inaga daayo dacwad bay geysan lahayn marka qolada waxa weeyaan wada iska masaakiin loo taliyo mooyaane waxa dad tashiyo si la sii weydin ma jirtay Mustafa intan hadda ku sii awrkacsanayo si kicinayaba waan gartay soo gartay ma Mustafa ku sii awrkacsanay marka qoladaasi waxba macna ma laha waa dadka masaakiin oo iska reer galbeed oo reer galbeed baa la dhahaaba intaas horta intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena dambe warar xiiso leh ku qaada dhigi doona waa soo gabagabeynayna wararka xiisaha leh waxa kamid ah Ethiopia xogta aan ka helayno 26 June yaan ku aadinayna bay dhahan qabsashada waqooyiga dalka Soomaaliya inaan tagno Zeyl iyo Lughaye warar baa sheegay xogta way soo doonaysaa Turkiga wuxuu ku qasbahayaa dalka Soomaaliya kuma qasbaya hadda Xasan Sheekh baa awal hore u xalaalaynaayay in Ethiopia wada hadal iyadoo ka noqon wada hadal la galo arrintaana way soo baxaysaa qodobo kale oo dalka Soomaaliya ku saabsan waan ka hadli doonaa hadduu Rabbi idmo marka barnaamijkan ha mogaanina intaynu ku kulmi doono mid kamid ah waxaan kaga tageynaa sida ay nabadgelyo